kulanti macno wanaagsan saaxiibada qiimaha badan meel walbo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada warar cusub oo ku saabsan taxanaha Hirjaya 3 oo duustiisa socota ayaan warar cusub idinka ka helnaa kanaalka da ku cusub subscribe saaragan balilkan ha ilaaban si wararka notification ahna ama degdeg ugu soo dhacaan share iyo like iyo comment kama marno duubista Hirjaya si heer sare iyo ku socota xalqada 41 ayayna hadeer la duubayaa xalqadii 39aad waa la duubay wayna diyaarsan tahay meel ayaa la dhigay sidoo kale tan xalqadii 40aad idana shalay moogi darad ayaa la soo gabagabeeyay haddaba maanta kalinkii hore kooxda Hirjaya waxay bilaabeen duubista xalqada 41aad sidoo kale tan xayisiinta loogu talagalay Hirjaya 3 ama season 3 qaybta saddexaad ee Hirjaya waa la diyaariyay kanaalka ETV lagu magacaabo ayaa hayo waxaana la filayaa toddobaadkan gudihiisa in la soo bandhigi doono goosgooskii xayisiinta ka turjumaya Hirjaya 3 oo dhan. haddaba maxay yihiin sawirro la faafiyay oo waxaa jiraan Hazard Shadowlog iyo Suldana laakiin si intaan galan sharaxada sawiradaasi waxaan idinla wadaagaynaa hordhaca xalqada 39aad iyo waxa la filayay inay dhici karaan xalqadani markii la soo daayay 11 September markii taariikhdu ku beegan tahay. waxyaabaha xalqada u horeeyay oo season 3 markaan daawanayna oo xalqada 39aad aan ku arkayno waxaa kamid ah Miran Rayaan Azizi iyo Maxamuudkii Azizi u shaqeynay afartoodiiba waxay ka qayb qaadan doonaan tacsida iyo liif ayaa la dhahay oo halkii waxay ku duugi doonaan Dilshaah iyo Maxamed Aslam bay halkii ay ku duugnaayeen ayaa liifna lagu duugi doonaa. sidoo kale waxaa la dhahay Miran iyo Rayaan waxay arki doonaan qabrigii Dilshaah oo burbursan maadaama Azizi Aslam bay ay burburisay qabrigaasi waana warar hordhaca oo saxaafada Turkiga aan ka soo xigeen run iyo been waxay noqon doontaa lama ogo kaliya idinka macluumaad ahaan iskaga qaata xalqada 39aad markii la arko inay dhici doonaan in kale markaas aynu kala ogaanina. muuqaalada kale waxaa la sheegay inay soo baxayaan Miran iyo Rayaan ayna imaanayeen gurigii ay Shakran oo tuulada ku yaalay maadaama ay Shakran ay wali u careysan tahay Miran waxayna uga careysan tahay wixii uu ku sameeyay Rayaan xalqadii u dambeeyeen labadooda u careysneed oo dib dambe iyago heshiis lagu matusinay. haddaba ay Shakran wali way careysan tahay meesheedii ayay joogtaa Miran iyo Rayaan ayana halkaas ugu tagi doonaan oo raali gelin doonaan. muuqaalada kale waxyaabaha ugu xiisaha badan xalqada 39aad lagu arki doono waxaa kamid ah sida hordhac ahaan loo soo xignay Handaan cunigeedu wuu nool yahay ayaa la sheegayay laakiin run iyo been lama oga Handaan cunigeedu wuu nool yahay sidoo kale tan oday Nasuh ayaa casho u diyaarin doona qoyskiisa reer Shadowlog oo dhan oo si uu murugada iyo wax walba uga iloobaan isaga mar walba oo wax dhacaan wuxuu jecel yahay in qoysku isku keeno sidoo kale tan casho la sameeyo xaflad la sameeyo waxyaabaas ayuu jecel yahay haddaba qoyskiisa ayuu isku keeni doonaa laakiin gabadhii yariin ahayd ayaa wax walba qasi doonto cashadii oo dhan way burburin doontaa ilaan iyada way careysan tahay hore ayaa guriga loogu waa imaan doontaa ayaa la dhahay iyadoo Haaruun uu la socday kadibna meesha iyo fooda iyo qas iyo qayli ka bilaabi doontaa cashadii oo dhan way burburin doontaa waan arki doonaa inay xalqadaasi xaqiiqi noqon doonto iyo haddii kale. Miran iyo Rayaan way kala tagi doonaan sida wararka xanta sheegayaan maadaama liif ay geeriyootay Miran wuxuu la safan doonaa Azizi Aslam Bey wuxuuna ka soo horjeesan doonaa Azad Shadowlog halka Rayaan ay la safan doonto qoyskeeda reer Shadowlog mar kale ayna lamaanahan kala tagi doonaan ayaa la sheegayaa. Rayaan waa la afduuban doonaa mar kale xalqadii hore ama seasonadii hore waxaan ku aragnay Rayaan in la afduubanayo haddaba seasonkan mar kale gaar ahaan xalqada 39aad ama xalqada 40aad midkood Rayaan waa la afduuban doonaa laakiin si dhaqso ayaa loo soo badbaadin doonaa. dhanka kale Azad Shadowlog isagana dhaawac ayaa soo gaari doona xabad ayaa lagu dhufan doona qofka xabada ku dhufan doona lama ogo laakiin Azad xabad ayaa ku dhici doonta sida la sheegay. xalqada 39aad dad cusub ayaa taxanaha soo gali doonaan Rayaan aabaheed inuu yahay ama Suldana wiilkeedii midkood ayay soo gali doonaan Suldana wiilkeedina waa cadowga saddexaad ee qarsoon haddaba cadowga saddexaad ee qarsoon miyaa xalqada 39aad soo bixi doona mise Rayaan aabaheed ayaa soo bixi doona mise qof kale waxaa la filayaa xalqada 39aad dad cusub inay soo galaan. ugu dambeyn Miran iyo Rayaan hadeer waxay ku sugan yihiin gobolka Agra lagu magacaabo waana xuduud u dhaxaysa Iran iyo America haddaba halkaas ay xalqada 41aad ku duubayaan xalqada 41aad halkaas maxay ugu duubayaan saxaafada Turkiga oo halkaas la joogan Miran iyo Rayaan sawirana ka soo qaadeen ayaa warar xan ah ka soo gudbiyeen wararka xanta saddex qayb ayaa loo kala qaadayaa
midda kood sababta halkaas ay u joogaan waxay tahay ayaa la leeyahay inay Rayaan iyo Miran baadigoobayaan Rayaan aabaheed oo halkaas lagu sheegay. sababta halkaasna muuqaalada loogu duubayna waa sababtaasi oo ay Agra u tageen misena ay baadigoobayaan Rayaan aabaheedii. haddaba Rayaan maskaxdeedii miyay bedeshay ma waxay go'aansatay inay aabaheed rasmiga raadiso? waxaan ku arki doonaa season 3 Herjaya Rayaan oo aabaheed baadigoobi doonta. haddii ay dhacdo in aysan Rayaan aabaheeda inay baadigoobto halkaas u tagin, waxay Miran iyo Rayaan halkaas u tageen inay ku wada noolaadaan. sidoo kale tana buuqa labada qoys ay ka dhex baxaan. xalqadaha xigan 41 ilaa 42 halkaas ay ku noolaan doonaan ayaa la sheegayaa. waa haddii aysan Rayaan aabaheeda inay baadigoobto halkaas u tagin. haddii labadaas arrinba aysan u tagin, arrinta saddexaad ay halkaas u tageen waxay noqon kartaa in Miran uu dhaawac soo gaari doono, sababtoo ah sheekada buug ayay ku qoran tahay. buugga waxaa ku qoran in Miran uu dhiman doono ama dhaawac halisa soo gaari doono, sida wararka sheekada buugga laga soo xiganayay. marka Agra markii la taga, Miran dhaawac halis miya soo gaari doono mise wuu dhiman doonaa lama oga. sidoo kaleetana waxaa la sheegay in muuqaalo halis oo Miran halkaas ku duubay, isagana nafsad ahaantiisa ma duubin iyo qof loo ekiisii ayaa duubay muuqaaladaas ayaa la leeyahay. sababtoo oo muuqaalada halistaasi nafsadiisa ma geliyo. inta badanna jaliyaasha ama atoorayaasha tirishooyin qofku ahadaba muuqaalo ficil halis ah markii la duubayo qofkaas u eg ayaa muuqaalada duuba oo lacag lagu siiyaa. marka waxaa la dhahay Miran muuqaalada halista muusan duubin, qof isaga u eg ayaa duubay. haddaba arrinkaasi maxay shakiga ayay sii xoojinaysaa oo ah in Miran dhiman doono ama dhaawac halisa kasoo gaari doonta xalqada 41 ilaa xalqada 42. waxay ahaataba wixii war ka soo kordhaba idiin soo gudbin doonaa. qodobka u dambeeya oo xiisaha badan wuxuu yahay Hazar Shadowlog iyo Sultana sawirada laga faafiyay shalay iyo maanta maxay yihiin? waxaa la isku qaldayaa waa laba taxane. Hazar Shadowlog iyo Sultana taxane hore ayay duubeen sanadkii 2016. taxanahaas waxaa lagu magacaabaa Black Hearty, waana taxane Turki ah oo Hazar Shadowlog dhinaca ka hogaaminaya. marka sawiradii Herjay iyo sawiradaas ayaa la isku soo dhex qalday, baraha bulshadana lagu soo faafiyay. anagana waan idin la wadaagnay si aysan idinka ugu kadsoomin. haddaba taxanaan ee sawiradan Hazar Shadowlog iyo Sultana isku dhigdhigan jaceylkana iyo dareenka muujinayn aad arkaysaan waa taxnihii Black Hearty lagu magacaabay ee sanadkii 2016 la daawaday. ma ahan taxnaha Herjay, shaqana kuma lahan. taxnaha Herjay, Sultana iyo Hazar wax jacayl ah kuma wadaagi doonaan, sidoo kale tan xitaa iskuma soo dhawaan doonaan. Hazar wuxuu jeclaan jiray waa Dilshaa haddii ka geeriyooteen xaaskiisa Zahra ayaa joogto. haddaba marka Sultana iyo Hazar waxba iskama galin, inay iscaawiyaan oo isrunta soo saaraan waa macquul, laakiinse wax jacayl ama xiriir oo isku soo dhawaansha ama ma wadaagi doonaan. sawiradaasna idin sareen, anagana sawiradaas waxaan idinkula wadaagnay macluumaadkan in aadan ugu kadsoomin. marka Herjay 3 waxaa la daawan doonaa 11 Sebtembar oo la wada sugayay. goosgooskiisana waxaa lasoo bandhigi doonaa toddobaadkan sida la filay, sida telefishinka ATV uu ku dhagan yahay. isaga ayaaba mar hore inuu soo daayay laga baahnaa. daawadayaasha qiimaha badan, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qodobadii Herjay aan kasoo diyaarinay subaxnimadan. kanaalka da ku xusteen subscribe saarto. waa mahadsantiin. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.